halkani waa duleedka magaalada Burco waana kaamka Farfadhiisi ka xiga dhanka waqooyi magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxaana ku nool in ku dhow 2300 qof balse dadka halkani ku nool ma haystaan baahiyaha aasaasiga oo ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada biyaha iyo sidoo kale goob saldhig halkan ku sugan oo warbaahinta u sheegay inaanay lahayn dhulka ay degan yihiin sidoo kalena haysanin goobihii ay ku gudan lahaayeen waajibaadkooda aasaasiga ayaa waxay yiraahdeen sidan anaga waxaan joognaa meel barakac caafimaad ma lihin xanaanooyin ma lihin biyo ma laha waxbarashana ma laha dhulna ma lihin dhul amaana waan iska degan wuxuu yiri afka waa beenaysha macallina waxaan u maleynayaa ucud way aragtaa maanta qaxoontigan dhulinayaan oo wax leeyihiin waxaan ka qabanaynaa hawlaha halkan dawladdu waxba ka qaban weyday caafimaad guud ma haysano suuliya ma haysano hanti guud oo dhul ma lihin nin fadhigaaga arkaya looma sare joogsay baa leeyahay waa aragtaan waxa meesha idinka muuqda indhihiina macallina aaskii nololeed waa dad ka dabdhacay weeye waxaan ku yiri qofka halka ku dhinta wax la geeyaa aadan Saleeman madaxiisa la geeyaa rabar baan u sameeynaa dushaan ku qaadnaa rag iyo dumarba waa la qaadaa baabuur aan ku qaadno meedka madaxiin meeshan suuliye ma laha waxa isku kashifan imika runta baan idin sheegayaa dumarkii iyo rag ka udhadii meel lagu gabado ma leeyahay garawaankiina waa dhameeyna kawdhe waa ayaan darada noogu daran weeyii geesa kale mas'uuliyiin oo hogaaminaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciidamada gobolka Togdheer Fuad Maxamed Furre iyo sidoo kale mas'uuliyiin ku wehelinaya safarkan ayaa gaaray kaamkan Farfadhiisi ee duleedka magaalada Burco waxaana u kuurgaleen xaaladda dhabta ee ka jirta kaamkani iyagoo arrimahan ka hadlayna waxay yiraahdeen sidan halkan saaka waxaan u nimi inaan soo booqano kaamam barakacyaala oo magaalada Burco ku hareeraysan kuna darxumaysan una baahan in wax la daryeelo wax loo qabto taas oo aad moodo sida aan hay'adayn looga soo baxday in xagga dawladda iyo hay'adaha ay ka gaabiyeen marka waxa weeyaan hay'adaha markii ay yimaadeen waxay noo sheegeen in xataa suuliyadii aan loo samayn karin oo cidii hantiilaha ahayd ee dhulka lahayd aanay ogolayn in suuliyo laga qodo gobolka Togdheer markii hore gobolku waa dayacnaa imikana dadkiisii kala sii dayacmay waxa la yaab leh dhul dhan oo 300 kilomitir isku wareega oo isku yaala oo leeyahay dad baale halkaas 2,000 qof degan yihiin qof yimaada iyo wax loo qaybinayo iyo xildhibaan yimaada iyo dawladda way wasiirtoona yimaad horta waa dayacdeen mas'uuliyadiina waa ka hadheen kaamkii ugu dhibaatada badnaa iminkaan ku sugannahay waa kaamka la yaahdo Farfadhiisi iminkana kulay magac kale reer noo sheegan waxa la kaamka alla ku kash dhibaato aad iyo aad looga argagaxo wax muslimnimadu aad iyo aad uga dheer qof muslim ah oo wadankiisii jooga oo dhibaatada noocaas ay ku dhacdo hay'adii barakacayaasha iyo hay'adii dibudajinta hay'adii keedka raashinka ummadii waa taas oo waa aragtaan dhibaatada halkan timiyaanu ku aragnay waxa ka koowa dhulka oo aanay lahayn waa dadkii xooluhu ka dhamaadeen hay'aduhu markay u yimaadaan suuligo ma qodi karaan gurina uga ma dhisi karaan iyo hay'adahan xaq u leeyahay dadkan hay'adan barakacayaasha iyo hay'adda keedka raashinka kaamamku way wada dhiban yihiin dhamaantoodba ee kaamka ugu dhibaatada xun la weey hadaa meel aad dajisaan garaweedan xukuumadda waxaan leenahay garoonka waa kana uu iska xinayaa airportkii Burco uu xidhan yahay hal dajiyo oo suuliya ka qotaan hal baan leenahay garoonka dheegiisa degay haloo furo garoonkano dadkani meel ay ku kaajaan iyo bulax kale ba joogaan iyo meel wax ka dhistaan oo ileeyihiin maalin walba oo laga raraabay yiraahdeen xukuumaddana waxaan leenahay intaanaan maradeedii ka saarin oo bacadkeedii soo dhigin is asturo kaamamka intaanaan gaadha kaamkan Farfadhiisi ayaa hore u ahaa meelaha ugu muhiimsan ee waqtiga ololaha ay xukuumadda talada haysaa ka ololeyn jirtay uguna baaqi jirtay bulshada inay wax u qabanayso balse taa bedelkeeda ayaa hadda waxa ka muuqda halkani sida aad arkaysaan muuqaaladan ay dadkani ku sugan yihiin iyo guryaha ay degan yihiin Nuux Maxamed Cabdi Badacas 24 TV magaalada Burco